Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada website-keena somalisoftware.blogspot.com. maanta waxaan ka hadli doonaa sidee aad u suubi kartaa website free ah. Website sidaan oo kaleeta u design garaysan oo aad iyo aad u fiican oo qurux badan sidee aad u suubi kartaa. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa weeyaan ama mawduuceena ugu muhiimsan maanta waxaan ka hadli doonaa website sidee aad u suubi kartaa oo aan uga hadli doono dhowr video oo tutorial ah oo website-ka sida free aad u suubi kartid. waa blogspot ayaan isticmaali doonaa. waa website badan oo free ah way jiraan oo sida WordPress iyo kuwa kale, balse website-ka ugu fiican oo maanta ugu fudud waa blogspot. taa ayaa maanta si fudud aan ku suubi doonaa. marka hore qofka maxaa loogu baahan yahay ama ujeedooyinka loogu baahan yahay waa maxay? qofku waa inuu leeyahay Gmail, taas oo cadeynayso in website-ka blogger ama blogspot suubsan karo awoodda u leeyahay. bloggerka wuxuu faa'iido u leeyahay adigoo aadan gadan hosti, adigoona aan gadan domain name. bloggerku wuxuu yahay waxaad saari kartaa xayisiin ama Google AdSense ayaa ku xiri kartaa. intaas marba mid ayaan sharxi doonaa. Google AdSense ayaa ku soo xiri doonaa, mar slideshow waan bedeli doonaa, mar menuda waan bedeli doonaa. ay wax anigoo ka hadli doona ayaa dhowr videoyaal badan ayaan ka suubinay. marka maanta cashirka koowaad ee bloggerka aan uga hadli doono waa maxay? waxa weeye sidee aad u suubi kartaa website free ah ama blogger sidee aad u suubi kartaa. first one waa inaad leedahay Gmail. Gmailkeenu waxa waaye tijaabo. userkeen passwordka ayaan gashanaynaa. وسoo kacay waa hagaag wuu soo kacay Gmailkeena. first one maxaad suubi doonaa? waa hagaag halka ayaa ka dooran doontaa, then waxaa sii dooran doontaa blogger. markaad dooratid labada step ayuu soo saaraa. Somali software waa keyga. marka tijaabo ayaan kali ku sii doonaa Gmailka markaa ku jirno, then waxaan suubsanaynaa passwordka ay gisho ku dhahaya internet. aad ma doonaysaa inaad blogger suubisid? create blogger ma abuur. okay, title-ka maxaad ka dhiganaysaa ama display the name-ka magaca ugu soo horeeyo qofka. hadena next waa ku gudbayna. maanta wuxuu suubsan yahay website-keena tijaabo. markaas aad u suubisid waxaad dhehaysaa new blogger. darabtid bloggerka title-kiisa ayaa inta ku qoraysaa. waxaan dhahaynaa tijaabo la iska dheh. address leedahay, addresska qaabka bloggerka kusoo galayo ayaa sheegaysaa inta. tijaabada naftigeeda noo soo koobiyey wuxuu kusoo baxayaa qofka kusoo raadi doonaa website-kan tijaabo.blogspot.com sida hadda ujeedaan. okay, wuxuu ku dhahayaa template-kii saaranaysaa. waa kuwa tusaale ah oo dan iska bedelaysa. mid daartid ayaa dooran kartaa. intana magaciisa waxaa ka dhigtaa waxaan dooreynaa template-yadan midkaa rabno waa dooran kartaa. marka kan ayaa iska dooreynaa oo iga ku sawiran yahay. kadib create blogger. waa abuurnay bloggerkay. waa mid easy ah oo si fudud aad ku abuuri kartid. bloggerkii marka u horeyso waan abuurnay, weli wax posti ah ma soo gelin. overview wax posti ma soo gelin. saas darteed page-keeni waa kana bloggerkii waa abuurnay. cashirkeena koowaad wuxuu ahay sidee aad blogger u suubi kartaa. sidaas ayaad u abuuri kartaa blogger. cashirka xiga iyo waxyaabaha aan bloggerka aan kusoo bandhigi doono. marka hore bloggerka hadda waan suubinay. bloggerkiisaan iyo marka uu soo kaco waxaa
rabnaa bloggerkii aan suubinay oo tijaabo.bloggerspot.com waxaa dhehnaa meeshaan view blogger new tab pages, then page imaw xunday tijaabo blog, halkan fiiri tijaabo blogspot.com. wuu abuuran yahay blogger laakiinse wax posti ah ama wax qoraal ah ma ku jiro. saa darteed waxaan rabnaa qoraalo iyo waxyaabo kale ayaan soo geli doonaa cashirka xiga, iyo la soco qaybihii kale ee aan ka hadli doono bloggerspot.com. anigoo maxamed abuukar cabdiqaadirne ayaa barnaamijkan tabi doono insha allah. intaa barnaamijkan qaybtiisa xiga aan ku kulmi doono, sidaas iyo amaana allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.